الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة اللحاد ومقعد الرأي سلسلة صحيحة قصص النبوية، سلسلة دي كسب سنة قصص النبي عليه الصلاة والسلام كاصحي ملخص كي ومن الرسالة دي مارتي زوروريي فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمة الله عليه جزاه الله خير حفظه الله تعالى. قصة اللحاد وي حديث كان عن قصة اللحاد كقاضنا إنه وحديث متفق عليه مسلم البخاري أي صار من حديث أبو هريرة وي. حديث كان قصة عجيبة أي كمارتي يحبرسي هاي وقصة ربنا إسرائيل كان أحد عضي نبينا عليه الصلاة والسلام سحابة سوى وقورهم وحلاه نحر كقصة وحيلة هاي أبو هريرة وحلاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه نبينا عليه الصلاة والسلام مال مالمها كمية وحنوغا ورمي ونوغا شيكيي لبا هوانا وربنا إسرائيل لبا ويل بيلهايين أي دالين عرور بهيستين لبا ويل بهيستين لبا دي ويل بايغو مال أي ديغان أي وحا يمد يي أما دروابا يمد مركاسا مد كميدا أي عنقيدي قاتي والله عرري والتغي وعني مركاسا waxay tiri tuba mid kale waxay ku tiri durwaagu neef maartay wiilku la tagay waa kaadi weyn labadii haween gabadh yar iyo islaam weyn bay haayeen midii weyneed wiilkeedii buu la tagay sida xadiidka ku cad tii weyneed wiilkeedii buu la tagay ayadii way soo orday wiilkii kii soo haray bay qabsatay marka mid kale ku tiri cunuga durwaagu qaatay ama yeeyidu qaadatay ama madax ku tago ay cuntay waa wiilkaadi way kaygi ma way isqabsadeen labadoodii ahdiga arinta ay dhacdayna waa waqti nabiyullaahi daawud iyo nabiyullaahi sulaymaan ay joogeen way labadooduba laba nabi laba rasuul laba boqor bay ahaayeen saddexda jagay lahaayeen laba nabi oo isdhashay laba rasuul iyo laba boqor bay ahaayeen awood aad iyo aad u waaweyn buu ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay idan way soo kaceen markii saas u qabsadeen oo isu tanaasuli waayeen way yimaadeen nabiyullaahi daawud bay u yimaadeen nakala xukum bay dhaheen nabiyullaahi daawud wuxuu markaa tii weyneed ayuu u xukumay arrintii faqadaa bihi lilkubra midii weyneed buu wuxuu u xukumay wiilkii oo yidhi tan weyn baa wiilka iska leh sabab min alasbaab ama markaasaga qariina u soo baxday u muuqatay ha ahaato ama ha ahaato maartay sharcigoodu saa ha dhigo oo qof weyn la xaq siiya almuhim xadiidku nooma faahfaahinin sababka iyo wuxuu u ictimaaday nabiyullaahi daawud idan tii weyneed buu u xukumay dhabta iyo xaqiiqadana ayadu mayna dhalin cunugeedii durwaagi cunugu qaatay buu way ka soo baxeen markay ka soo baxeen haddana waxay aadeen nabiyullaahi sulaymaan ba aadeen kulli sabab min al-asbaab u soo baxday ay nabiyullaahi sulaymaan u kaceen way u tageen warkii bay u sheegeen oo waxay ku dhaheen sida maan isku haysanaa laba wiil baanu dhalay mid baa durwaa qaatay kii kalena maartay midna waa waan isku haysanaa midda kale tiri ana cunugan dhalay nabiyullaahi sulaymaan mawhiba rabbaani ilaahay uu siiyay oo ku manaystay iyo aqli iyo fariiso iyo maartay fahan daqiiqa markii arintii waxa dab muuqdo oo labadoodii lagu kala saara ma jirto marka wuxuu yiri ii kaanu sakiin iyo mindi ii kaanu mindi hal ii kaanu saadihi baa lagu yiri kolkaas wuxuu yiri waan idin kala goyn maadaama halkan cunugaas ku haysataan cadayn leedu kala saarana ayna jirin cunuga mindida dhaxdaan ku dhufanaya waan kala goyn cunuga qayb marka taweyn baan siin qaybna mid yartaan siinay waa idin kala goynayaabu sida cad hilib baa idin kala jaraya xigma ku jirta halkaas tii weyneed ee cunugeedu durwaawi maartay yeeyidu cuntay marka horeba cunug mayna weyna ogeedinayna cunuga ayadu dhalin si loo wada khasaaro waxay tiri nacam diyaar baan ahay bit ana maartay diyaar baan ahay noo kala goobay tiri aniga cunug maartay gabadhan cunuga noo kala jar laakiin gabadhii yareeyda hooyada rasmiga ahayd cunugana markaa gacanteedii kuma jira taweyn baa cunuga haysa waxay ku tiri maartay rasuulka ilaahay nabiyullaahi sulaymaan waxay ku tiri maartay la tafcal yarhamukallah bayt ilaahay ku naxariistee arrinka ha samaynin bayt kala goynin bayt ilaahay ku naxariista maartay huwa ibnuha waa cunugeedii waa ayada siibay ku tiri ayada siibay bedelkaad kala goyn lahayd
ayadu ha qaadatay macnaheedu halkaas waxa weeyaan badalkii la dili lahaa cunugaygii oo qof kala korsaday ha noqdo faqadaa bihi lisuqra nabiyullaahi sulaymaan tii yarayd buu u xukumay tii weyneed wuxuu ku yidhi keen buu yidhi cunug aad u malihida ikhwatii filaahi qisadan oo qisa cajiiba weeyaan oo culimmadu aad iyo aad ugu wareereen sharaxeeda waxyaabo fara badan ayaa qisada ku jira maaragtay oo la sal gaari karin koow waxaa ka mida nabiyullaahi daawuud muxuu ku doortay maaragtay inuu midda weyn u xukumo waxyaabo fara badan bay culimmadu sheegaan qolo waxay leeyihiin iska ijtihaad bay ahayd sabab u soo baxay unbay ahayd qolo waxay leeyihiin maahe wuxuu ahaa diintooda waxay dhigaysay qofka weyn in la xaq siiyo almuhim waxay ahaydba nabi ilaahay buu ahaa markii waxaa u soo baxday inuu taa weyn u xukumo tii weyneed buu xukumay nabiyullaahi sulaymaan markay u yimaadeenna mindi halkaa waxaa laga qaadan bay dhaheen fahanku waa mawhiba rabbaaniya weeyaan yacni fahanka daqiiqa iyo inuu qofku fahankiisa iyo maskaxdiisu camiiq ay ahaato meel dheer uu wax ka fahmo mawhiba rabbaaniya weeyaan ilaahay baa bixiya shaygan daqiiqnimadkiisa iyo maaragtay fahankiisa daqiiqa iyo waafajinta ilaahay baa bixiya kuma xidhno waa qof weyn iyo waa qof yar kuma xidhno maxaa yeelay ilaahay wuxuu waafajiyey nabiyullaahi sulaymaan buu ilaahay waafajiyey aabbihii oo asna nabi ahaan lama waafajinin idan marka nabiyullaahi sulaymaan waxay culimmadu dhaheen limaada uu u yidhi sakiin ha liii keeno bimacnaa mindi ha liii keeno aan kala gooye waxay leeyihin halkaa waxaa laga qaadanayaa ninka qaadiga mararka qaarkood waxaa dhici karta arrintii inay dhinacna oga dhici weydo macnaheeda labadii qof ee is-haystay inuu mid kastaba xujadii la yimaadaa dhici karta oo maaragtay labadii qolo mid u xukumaba ay ku adkaato saa darteedba waa la rabaa inuu caqli iyo fiiro dheer iyo fahan dheer inuu isticmaalo iyo xiilad inuu isticmaalo idan nabiyullaahi sulaymaan markuu lahaa mindiha la ii keeno kama ahayn dhab ahaan inuu kala gooyo cunuga uu dilo kama ahayn ee wuxuu ahaa inuu ogaado xaqiiqada labadoodan cunugan ay sheeganayaan mayna wada dhalinin mid unbaa dhashay oo dhab ahaan u dhashay idan midda beenta sheegaysa si loo ogaado halkaasuu raxmadda waxaa halkaa laga dheehan karaa hooyada dhabta ah naxariisteedu way ka duwantahay hooyada muftacalka ee aan waxba ka jirin warkeeda idan mindidii halii keena markuu yidhi tii weyneedee ogeyd cunugeedu inuu dhurwaagu qaatay markiiba way soo boodeen noo kala gobayt halkaa maxaad ka fahmaysaa hooyo dhaba inay cunugeeda hala kala gooyo inayna dhahayn marnaba inayna dhahayn tii yaraydna maxay tiri ilaahay ha kuu naxariistee nabiyullaahi sulaymaan oo allah raxmaddiisa ha ku waafajiye haddii maxay tiri ayadaa siibit huwa ibnuha wey ha kala goynin bay tiri ayadaa iskale bay halkaa waxaa ka soo baxay inay maaragtay labadoodii ay kala baxeen tuna hooyanimadkii dhabtahayd bay la soo baxday iyo naxariistii iyo shafaqadii qalbigeeda ku jiray tuna inayna dhalin baa caddaatay saa darteed nabiyullaahi sulaymaan ayuu u xukumay tii yarayd culimmadu waxay dhahaan su'aal bay keeneen su'aalo badan baa xadiidka ku jira laakiin maaragtay maanta inaan falanqayno ugumaana talagelin laakiin intaan ka rabnaa waxay tahay maaragtay inuu qaadigu la yimaado mararka qaarkood xikmo inuu isticmaalo labadii qof markuu kala saari waayo inuu xikmad isticmaalo culimmadu waxay dhaheen markaa gabadhii yareed wayba qirtayba inay cunugan islaantan weyn ayadoo ay dhashay huwa ibnuhaa bay tiri limaada ayadoo ugu xukumay qiritaankeedii muuse qabanin ay tiri ayadaa dhashay ay tiri ama cunugeedii wayaan ay tiri muuse qabanin ayadii buu dib ugu soo celiyey wuxuu ka fahmaya baa leeyahay huwa ibnuhaa markay leedahay uma jeedo inay dhashay hooyanimadkii iyo raxmaddii ayay maaragtay beddelkii la gowrici lahaa in la kala goyn lahaa in ayada la siiyo ayay ka doorbiday halkaas wuxuu ka dhadhansaday hooyada dhabta inay ayadu tahay maadaama ay diidday in la kala gooyo taa kale waxay sheeganaysana aanay waxba ka jirin wuxuu xusuusinayaa xadiidkan qisadaas cajiibkaa oo fahanka ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi sulaymaan ilaahay uu waafajiyey waxay xusuusinaysaa axad alqudaad oo muslimiinta soo martay oo nin aad cabqari u caqli badan ahaa ayaa laba nin intay u yimaadeen ishaysta nin baa nin kale xoolo ammaana u dhiibtay wax maqhraati oo uu keenayna uu geliyeyna ma jirin marka xoolihii wakhtigii markuu u yimid oo xoolihii isi yidhi wuu ku inkiray waa difiray wuxuu yidhi wax xoolo ah baqdaadii halkaasayna qisadu ahayd ibnuqayim baa soo guuriyey qisadaas
markaasaa wuxuu ku yidhi qaadiga baa loo wada yimid qaadiga wuxuu ku yidhi ninka maan markuu maxkamaddii qaaday wuxuu yidhi ninka maan ammaano u dhiibtay qaadiyow ninkiina waa inkirana wuxuu ii dhiibtay male qaadigii ninkii ammaanada iska lahaa wuxuu yidhi makhraati ma haysaa mayuu yidhi kii kalena markaas wuxuu ku yidhi meeshii aad ugu dhiibtay ma garanaysaa haa orodo wuxuu yidhi tag meeshii ninkan aad ugu dhiibtay markaa tagtay soo noquu ku yidhi kii kale arrinta inkirsanaana halkan fadhiisuu ku yidhi kadibna qaadigii shaqadiisii kale uu iska galay dadkii kale iyo hawshoodii buu galay kii kalena hoostuu ka fiirinayay bal inuu is-iloobayo isdaadiyo hoogaa markuu ninkii maqnaa kii kalena uu arkay inuu yar daadsan yaho hawshii maaragtay uu hadda aad xusuusaasa isa jirin ayuu kula boodo wuxuu ku yidhi war ninkii wuu dahay maxaa ku dhacay kolkaasaa way ka soo booday wuxuu yidhi qaadli ma dhowa meesha mabuu gaadhin dhexduu ku sii jiraa buu weli mabuusa gaadhin meesha waa sii socdaa buu ninkii mabuu gaadhinba halkaa maxaa ka soo waa is-iloobay marka wuxuu yidhi ninkii inuu yimaad iska daya waaba sii socdaa buu meesha ma dhow yidhi weli muusa gaadhin halkaa maxaa ka soo baxay bas qaadligii shib buu iska yidhi ninkii waa soo noqday waa u yimid markaas wuxuu ku yidhi waryaa waa laguu leeyahay ammaanada iska bixi buu ku yidhi inay maaragtay meeshu ay fog tahay iyo inay dhowdahay iyo inuusan ninku gaadhinba haddaana ammaanada laguu dhiibinooda garanayna seed ku garatay seed ku ogaatay buu xaqa waa laguu leeyahay iska bixi buu ku yidhi idan qaadiga mararka qaarkood fariisa inuu isticmaalo iyo caqli inuu isticmaalo iyo fahan dheeriya inuu isticmaalo aad iyo aad bay daruuri u tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaai lxusna wa sifaati alculaa inuu xaqa natsanuuna irsaaqo xaqa raacitaankiisa hada wasala allahu calaa nabiyina muxamadin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu